بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد daawadayaasheeda barta Facebook aan ku leeyahay maanta barnaamijkeenu waa barnaamij si toos ah aan ugu soo tabanayna magaalada London. barnaamijka maanta waa saad in sheeg waa mid live waxaa marti noogu Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed oo ka hadli doono arrimo badan oo ku saleysan midnimada. Cabdirashiid waxaa ku xasuusatiin wuxuu ka hadlay abtirsiyada Soomaalida oo waxaa xasuusatiin aan filayaa clipkii mise muuqaalkii uu ugu jawaabayay Professor Gandhi iyo Abu Mansour iyo Cabdi Good Abees oo daawateen aan filayo hadal badan ma buuxsho afhadla looma hadlayiri wuu joogaa marka waa kan live ayuu yahay hadalkana insha Allah taala isaga ayaan ku wareejinayaa. waxaa idinka codsanayaa inaad live-ka sii share gareysiin arrimo badan oo xasaasi ayuu maanta ka hadlayaa. waa mahadsantihiin, fadlan sii share garey, arrimo badan oo xasaasi ayaa laga hadlayaa oo ku saleysan midnimada. Cabdirashiid kusoo dhawow live-ka. السلام عليكم ورحمة الله. Soomaalida adduunka dacaladiisa iga daawanaysa waxaan maanta rabaa inaan ka hadlo qodobka ciwaankiisa la idin sheegay. waxa weeye ciwaanku waa haldoorkii hore iyo kuwa hadda nool raadkoodii aan raacno anagoo midaysan haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed. maantay bishu waa 14 Jamadul Aakhir 1438 hijriga oo ku beegan 13 March 2017. waddanka aan joogo oon ka hadlaya hadda waa waddanka Ingiriiska, magaalada aan joogana waa London. waxaan rabaa qodobkaas ciwaankiisu meesha ku qoray aan idin sheegay inaan ka hadlo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Soomaaliyeey waxaan wada ogeyn dhammaanteen intiina dalka gudihiisa joogta iyo inta joogta dibadda ama qurbo joogta ah in Soomaaliya 26 sano oo la soo dhaafay midnimadii ugu weyneyd iyo kacdoonkii ugu weynaa iyo isku duubnaantii ugu weyneyd inay dhacday oo dowladda cusub oo hadda noo jirta aan ku dooranay oo madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Prime Ministerna uu ka yahay Xasan Cali Khayre. waxaan wada ognahay dhowr bari inay socotay banaanbaxaas iyo xafladaas iyo faystadaas iyo kacdoonkaas. taasaan waxaan rabaa marka inaan adkeeyo oo hadalkan ku adkeeyo midnimadaas inaysan naga kala furfuran, inaysan naga mataqaanaa baabi'in, inaysan naga xagal daacin, laakiin la sii adkeeyo oo dhidibada loo aaso oo lagu mintido. waa inaan marka midnimadaas aan ku xaqiijinaa hadafka iyo yoolka aan u socono oo ah inaan waddankeena difaacano. waddankeena waxaan ku difaacan karnaa midnimo iyo isku duubnaan. su-aasha meesha taal waxa weeye marka waddanka yaan ka difaacaynaa. waddanka waxaa laga difaacayaa cadowga aan leenahay oo soo jireenka ah oo fashiistaha ah oo imperialistaha ah oo naasigii hore ahaa oo naasiga cusub ah oo beesha caalamka la baxay oo hadda waddankeennii
kontonna qaatay kontonna noo dhiman tahay ama in ka badanba qaatay konton oo 50-50 waddankeena 50na waa la qaatay 50na waa dhiman yahay caddaanka waa dhimay dadkaasaa la iska difaacaya beesha caalamka haddii marka aan idiinsii tafsiiro oo idiinsii qeexo idiin caddeeyo usha madaxa aan kaga dhufto waa kuwa ilaahay qur-aanka uu ku yiri qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda aayaddu hadday sii socoto haddana waxaa la gaarayaa in yahqafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsutuu aydiyakum wa alsinatahum bisuu'i waduu low takfuruun lan tanfacakum arxaamakum walaa awlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum wallahu bimaa tacmaluuna basiir waa dadkaas waa gaaladaas qofku hadduu muslim yahay cadowgiisa rasmiga oo jireenka ah ilaa adduunka markii la abuuray ilaa qiyaamaha la gaaro waa gaal wey qofkii asagoo baqaya oo dhahaya anugu muslim moodaraan baan ahay waa gaarkiisa qofkii dhahaya waan gaaloobay oo gaaladan ka baqahayaa intay dili lahayd gaal baaba noqonahayaan oo gaalnimo naf ka raadinaya asagay u taallaa laakiin qofka muslimka oo khaaliska oo soomaaliga ah waxaa nagu soo duulay oo dhulkanagii qabsaday oo hadda 75% ama 50% haysta waa gaalo wey oo isugu jira kuwa cad iyo kuwa madow oo isugu jira kuwa daris nala iyo kuwa naga fog waa dadkaas iyaga waxayna isticmaalayaan welibana dad kale oo muslimiin ah oo aan soomaali ahayn iyo kuwa muslimiin ah oo soomaali ah labadaasna waa noo isticmaalayaan oo ayagii la jiraan marka waxaa idiin sheegay dhulka inaan difaacano waxaa laga difaacayana waa idiin sheego waa cadowgaas gaalada ah su-aasha marka ku xigta waxaa weeye qaabkee loo difaacaa marka see dhulkii u difaacanaynaa cabdirashiido dhulka waxaan u difaacanaynaa 5 qodob 5 tiir baan mudanaynaa horta soomaalinimadu waxay ku taagan tahay 5 tiir diinta islaamka soo 5 tiir kuma taagna iyo 6 iimaanka waa 12 12 waxaa ka rita al-ixsaan culimadu 12 kaas marka la isku daro ba diinta islaamka tiirarkeeda waa 12 kaas ay dhahan annaga soomaali haddaan nahay soomaalinimada macnaheeda waxa weeye 5 tiir wey tiirka ugu horeeya wuxuu yahay islaamnimada wey waa alkitaab walsunna diinta islaamka wey tiirka labaad waxa weeye waan difaacanaynaa kow diintan difaacaynaa waa tiirka koowaad tiirka labaad waa dhulkan difaacanaynaa oo xuduudihiisa xuduud beenaadkii waa lasoo dhaafay waxaa naga maqnaa awal soomaali galbeed waxaa naga maqnaa NFD oo Kenya haysato tii way haystaan weli haddana waxay ku darseen xuduud beenaadkii bay gudaha usoo galeen gudihii bay wax badan qabsadeen haddana waxaa haddana ay qabseen baddii bay haystaan waxay haystaan hawadii bay haystaan oo baddii Kenya qaar goosatay hawadii Hindi iyo Kenya hadda alla socota inay kala goosan rabaan waa qodobka saddexaad qodobka afraad dadkii waa dhameeyeen 50% waxay dilaan waxay qaxiyaan oo badaha ku qaxiyaan waxay magafo u diraan oo magafo beerkii kaliya kala baxo waxay ayagu diyaarada ku dakhayeen wadan gudiisa ku dilaan waxay raashin dhacay ku dilaan waxay daawo dhacday ku dilaan waxay xabsiyada wadamada kale oo aan Soomaali ahayn oo Kenya iyo Ethiopia ugu sokayso iyo Yemen maxaabiiska oo ku xiran waa qodobka afraad wey kan shanaad ugu dambeeya waxa weeye aabayaashan iyo awooyaashan oo taariikhda inooga tageen iyo miri aan ka dhaxalnay oo sharafta iyo gobonimada iyo isla weynanka iyo qabka iyo qadiyada iyo soomaalinimada ahaa asagiina konton baa burburtay oo burburiyeen ilaa hadda Soomaalida dadka qaarna ka baqayaan qaarna ka xishoonayaan ilaa heerkaasna la gaarsiiyay anagoo aabayaashan iyo awooyaashan ay waran wataan iyo falaar
geel la joogaanoo laba qayd wataan bay adduunka iskula qab weynaayeen haddana saacadan baan marka yaan ka magacii iyo aabayaashana taariikhdoodii aan ka xeshoona ama inkirayna heerkaasna waa nala gaarsiiyey shantaas qodob marka oo shantuba inay dhaawac yihiin aniga aan aaminsanahay oo shantaba konton inay faraheena ka baxeen aan aaminsanahay inaan kontonkana naga maqana farahan kusoo ceshano oo soo gacan gashano kontonka noo harana aan ku mitidno haysano wey su-aasha ku xigtaa waxa weeye sidee qaabkee cabdirashiidow marka aan u difaacana marka inaan difaacano garanay dhulkii diintii dhulkii dadkii khayraadkii iyo qadiyaddanadiiba inaan difaacno laakiin qaabkee loo difaaca marka oo waxaan ka tegey hantida maguurtada iyo midda guurtada ah xoolaha nool dahabka shidaalka gaaska macdanta dahabka iyo dheemanka waxa noo buuxa inaan difaacno iyo inaan aabayaashana mataqaan magacooda sharafta difaacno shantaas qodob bay ahayd qaabka marka aan u difaacayno waxa weeye waa sidaan soo socota horta bini aadanka dad aan mabda' lahayn qadiyad ay xaqiijin karaan ama qadiyad ay difaaci karaan ama yool ay gaari karaan ma lahan waa inaan marka horta aan samaysanaa calaamad aan isku naqaano annaga Soomaali ah oo mabda' no ah mabda' annaga marka wuu cad yahay laakiin dad badan baa sheeka gala mabda' annagu waxa weeye waa alkitaab wal sunna waa diinta islaamka wey waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sal ly slam oo gows dambeedka la dhigo lagu mitido la barto lagu dhaqmo la xagsado la difaaco wey mar haddaan mabda' yeelanay oo mabda' anagu uu yahay aan ku soconayna oo dhulkanaga ku difaacanayno oo shanta tir aan ku difaacayna hadduu kaas yahay waxaa su-aasha ku xigta tahay yaa marka ka hadlinahay kitaabka iyo sunnadii yaa ka turjumaya oo ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed u turjumaya shacabka Soomaaliyeed waxa uu turjumaya aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo laba qayb aan kala qaybinayo culimo diinta islaamka ku xiraystay ku xeel dheeraaday iyo adduunka hadda la joogo science and arts science and technology professorada doctorada aqoon-yahanada bartay labadaas oo la isku daray oo haddana dee professorka aan ka hadlahayo ma ahan professor gaal ah ma ahan professor munaafiq ah ma ahan professor caado qaata ah oo mididin lagu shaqaysta ah maahan oo gaalo u shaqeeya maahan waa professorkan ka hadlaya waxa weeye waa professor muslim ah alkitaab wal sunna ogol waxna ka yaqaan haddana cilmigii science and arts science and technology yaqaano wey adduunkan meesha u socdo Soomaalidu booska kaga jirto taariikhda iyo juqraafiga adduunka sida adduunka ma taqaana qofba qadiyadu leeyahay u difaacanayo qofka uu saaxiibka leeyahay wuxuu uga dhameysanayo kan cadowgiisa u garanayo isagana difaacayo dadka yaqaan dadkaas indheer garadka intellectuals aqoon-yahan indheer garad labadaas oo la isku daray baa waxaa leenahay kitaabka qur-aanka iyo sunnada ka hadliya ka turjuma ayagaasaan marka waxaan ka dhiganaynaa liidharay oo hogaamin maxaan haysanaa mabdii oo alkitaab wal sunna oo diinta islaamka ah maxaan haysanaa culamadii uu yiri qaala tacaala ilaahay muxuu yiri marka culimada ka hadlay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay aayad kale muxuu ku leeyahay ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما علماء إلهي وكبقيا وابا كان بإلهي بابا كيرا قوشا إنما يخشى الله من عباده العلماء تذكير محولي إلهي وحقول هذا إلهي وقفك أد نوغر لغيسه قامية إمامك نوغر لغيسه من أدي إله كبقي إنه نقضوه إلهنا محوق وشا علماء إلهي إنا كبقي سقوشا علماء مركا يبرفصور هذا النظر iyo doctoradanada aqoon-yahanada ayaa hoggaanka u dhiibanayna ayagaasa kitaabkii noogu turjumaya halkaas su'aal baa ka soo bixi karta cabdirashiid yaad kala jeedaa noo magacow hogaamiyaasha aad noo sheegaysad oo culimada oo professorada oo doctorada oo aqoon-yahanka oo indheer garadka noo sheeg
20 baa idinkaga soo qaaday 20kaas waxaan u bixiyey haldoorkii hore ee Soomaalida ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa hadda nool raadkooda aan raacan raggan u bixiyay weeye 20 baan ka soo qaaday 20kaas laba qayb baan u kala qaybiyey 10 safka horaan ka dhigay 10 safka dambe 10ka safka hore waa dhinteen qof kama noolo Allahu naxariisto kulligood 10ka safka hore labaan u kala qaybiyey qaybta mudnaanta koowaad leh oo safka hore oo 5 ah qaybta sufna qaybta labaad oo ayaguna 5 qof ka kooban oo mudnaanta labaad aan siiyey shanta ugu horeyso oo mudnaanta koowaad leh ninka ugu sii horeeyo waxaan ka dhigay Axmed Gurey ninkii sheekh ahaa mujaahidka ahaa siyaasiga ahaa Ethiopia dadka jooga muslim ka dhigay xoreeyay kadibna Boortaqiisku burburiyeen iyo nimanka reer Yurubka ninka labaad waxa weeye waa Sayd Maxamed Cabdulla Xasan Daraawiishti isagana Ingiriis ba burburiyo diyaarad ku duqeeyay ninka saddexaad waa ragii SYL nin ka soo dhaxbaxay oo 60kii markii la doortay wadanka nasiye madax banaanida oo xorownay oo isku darsanay ninkii madaxweynuhu hore loo doortay Aadan Cabdulla Cismaan SYL buu ka soo jeedaa asaguna ninka afraad waa 25 sarkaal oo janamada ahaa oo kacaankii kulatanka October dhaliyay ninkii hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ninka shanaad oo ugu dambeeyay shanta waxa weeye SYL dabaysheedii markay gaartay Djibouti dadkii halgamay oo SYL ahaa oo Djiboutiyaanka ahaa ninkii hogaaminayay markii dambena madaxweynaha ahaa waa Xasan Gulad Abtidoon shanta taariikhda Soomaalida inta aan ka aqaan aniga Cabdirashiid shantaasan waxaan ka dhigay safka koowaad shanta labaad oo ku xigta waxa weeye waxa koow ka ah madaxweynaha Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo laftigiisu SYL ragii ahaa ka soo jeeda ninka labaad waxa weeye 25kii golaha sare oo janamada ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka marka ahaa barnaamijka ahaa wasiirka shaaniga ahaa Maxamed Cali Samatar ayaan dhawna dhiman jiray macruufka wada garanaysaan 77 dagaalkii hogaaminayay wasiirka shaaniga ahaa ninka afraad waa Cabdullaahi Suldaan Timacadi sareeyo munusqaamo aan sidoo yahay aagna ka nasiib kana sar 60 calanka ninkii uu gabiyay waa macruuf gabiisa waa la yaqaanaa gabayada ugu caansan waxaa ka mid ah anu badan qanaya dhawo umada loolan dhankan ka hadlay wax saas oo gabayga saasa ku jirtay ninka shanaad oo ugu dambeeyay waxa weeye waa Dr. Umar Cismaan Rabi Dr. Rabi oo fadhigiisu aan jiray Ottawa 2013 ku dhintay Masar Djibouti lagu aasay xabsi Faransiiska ku xirnaan jiray dhalinyaradii xornimada Djibouti u dagaalami jirtay Faransiiska dhaxtuur jirtay ahaa oo asna macruuf ah wada garanaysaan ninkaas muxaadaroon badan uu leeyahay lecturada uu leeyahay aad wada daawateen anigu waxaan kula kulmay 2007 wadanka Suuriya habeen oo halka shir noogu qabtay oo muxaadaro noo jeedina waan dhageystay 2 jeerna ana ka dalbaday in arrimaha Soomaaliya taariikhda Soomaaliya wax ka weydiiyo hotel baan tagnay wuu ogolaaday aad buu ixtiraamay 2 jeer baan la sheekaystay waqti badan la sheekaysanay 10kaas waa 10kii safka u bixiyay oo hormuudka haldoorka ummadda Soomaaliyeed qaybtii hore 10kaas way qaybta labaad oo hadda nool oo haldoorka Soomaalida 10 nin baan ayana ka soo qaaday 5 waxaan ka dhigay safka hore 5 waxaan ka dhigay safka dambe 5ta safka hore ka dhigay waxa ugu horeeya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha hadda waqtiga noo jooga oo hogaaminayay kacdoonkan hadda Soomaaliya dal iyo dibadba 60 sano kacalinka ugu weynaa ninka ku xiga waxa weeye waa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo Djibouti 2010 sano markay saysanay oo kala dhamaan weyn ninkii goosha noo fidiyay madaxweyne ugu horeeyay Cabdulqaasim Salaad Xasan lagu soo doortay haddana cali masaarkii ka soo qayb galay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo maalinkii aan dooranay madaxweynaha Djibouti waa ninka labaad
ninka saddexaad waa sheekh shariif cabdinuur oo markii ugu dambeysay 2010 maka ku noolaa oo xanuunsana allah caafiyaan leeyahay waa macruuf waad garanaysaan Soomaali waa la yaqaanaa waa caalim nool oo hadda muslimka adduunka ku nool dadka ugu cilmi badan 1 2 3 adduunka ku wahan waa 2 hadduu lahayn waa 3 4 xataa waa ka horeeya ninka afraad waa Prime Minister hore Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf oo wada garanaysaan macruufka ah wararka ugu dambeeyay oo sheegay kamid 2 jeer in la isku dayay in la dilo xamar lagu dilo asagoo qadiidiisa Soomaalnimada lagu dilay dhalinyaradii SYL-na ahaa wax badan baad taariikhiisa iyo lecturada uu jeediyay muxaadaroyinkiisa aad wada dhageysanaysaan ninka shanaad ugu dambeeyay waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare hadda ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi Maxamed Cabdi Yuusuf Prime Minister-kaas hore iyo gudoomiyaha hadda aqalka sare labada nin aniga Cabdirashiid waxaan u aqaanaa SYL nool hadda nimankaasu waa 10kii haldoorka Soomaalida oo hadda nool shantii safka koodan ka dhigay way shanta aan safka damba ka dhigay oo ayagana haldoorka hadda nool ah koo waxaa ka ninka la yiraahdo Zakariya Xaaji Maxamuud ninkaas waad garanaysaan Asmara markii la aaday 2006 oo maxaakiimtii la burburiyay lagu soo duulay ilaa iyo markii hadda madaxweynaha tartankiisu iska casilahay oo ku lahaa baarlamaanka indhihiinan u jeedaay qof khayr qaba dooran doontaan intuu ninka halkan soo maray waad garanaysaan in lagu shaabadeeyay inuu yahay shaabadan hadda ay reer galbeedku noo samaysteen markay dhulkanaga iyo diintanaga iyo dadkanaga iyo khayraadkanaga inay dhacaan rabaan oo argixisada inay ku shaabadeeyeen oo loo yar qabsaday oo ka adkaaday waa sigii sheegay ninkaas waa koow ninka labaad waa Sheekh Maxamed Cabdi Umal waad garanaysaa sheekha macruuf weeye Soomaaliya waa la yaqaanaa intuu Soomaalida diinta ma taqaana goos dambeedka ku qabsada uu yiri ha lagu mintido Soomaaliya yaa la galoobin diinta ha lagu mintido inta ma taqaan ninka daqar ku dhacay asna waa la socotaan inta hagaadam loo geystay ninka saddexaad waa Cabdulqaadir Cali Boolay oday waxa weeye SYL sharki ka haray ah waxa ugu dambeysay habeenkii dawladda loo dabaaldegay magaalada London Hammersmith City agteeda hol uu kareeyay buu noogu yimid waa joogay anigu uu hadlay Soomaalida aad buu ula hadlay Cabdulqaadir Cali Boolay oo SYL sheeha waa yeel arug cadaa nin ditoora ah taariikhda Soomaalida aad iyo aad u yaqaana waliba tii SYL halgamada la soo maray ninkaasna waa ninka saddexaad ninka afraad waa Cali Mire heestan ah Soomaaliya toosoy asagana Columbus Ohio ayaan ka daawaday oday madax cad madaxii cadaaday wada ciro ah heestii qaadaya asagu inuu alifay sheegaya Columbus Ohio America way ayaa ninkaasna halkaas uu joogaa asagoo waayela Cali Mire wax loogu sii daro ma aqaan laakiin waa iska macruuf oo baahna raadin kale uma sii baahna heestaas aad ku garanaysaan Soomaaliya toosoy ninka ugu dambeeya waxa weeye Cabdimalik Muuse Coldoon oo hadda ku xiran Hargeysa oo lagu haysto maxaad Soomaalida ma taqaanaa dal iyo dood ka banaan baxday oo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dooratay maxaad u tagtay uga qayb gashay xafladaas oo khaasatan aad Farmaajo u salaantay oo macnaha u soo dhaweysay oo u gacan qaaday oo waraysi uga qaaday 20kaas waa aniga way aragnimadeeda caqligayga intii Soomaaliya aan ka soo dooray oo u bixiyay hal doorka ummadda Soomaaliyeed oo 10 dhintay iyo 10 hadda nool aan u kala qaybiyay 10kii hore 5 u kala qaybiyay 5 hore iyo 5 dambe 10 kaana 5 hore iyo 5 dambe Cabdimalik Muuse Coldoon intaanan ka bixin si xushmad iyo sharaf qadarin islaamnimo iyo Soomaaliya waxaan Soomaaliland anagoo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ah oo magacooda ku hadlay ugu codsanayna ninka Cabdimalik Muuse Coldoon
in xornimadiisa aad u soo celisaan ood xabsiga ka sii daysaan inta cimrigiisa ka hartana taariikhda meel baal dahab uu kaga jiraa in ninkaas la difaaca maahane inaan la xirin oo la dhibaatayn oo waxba loo geysan dadkaas iyaga ah marka tobankii dhintana raadkooda ha la qaadaan leeyahay oo haldoorka ahaa tobanka noolna raadkooda ha la qaado waa meeshaan ciwaanka uga dhigay haldoorkii hore iyo kan hadda nool raadkooda aan qaadno annaga soomaaliyeed tobankaas nin oo hadda nool marka inaan raadkooda raacna ayaga maxaan ka rabnaa dad badanaa gadaal kusoo bini marka magacyadooda hal mar marka la xus si bobsiis dadka dib ka soo galay 20 haldoorka Soomaalida ah oo haldoorkii hore iyo haldoorka hadda ah markaan magacooda idin bobsiyo waxa weeye haldoorkii hore waa 10 nin waxay u kala qaybsan laba qaybood 5 hore iyo 5 dambe shanta hore waxaa kow ka ah Axmed Gurey waxaa laba ah Cabdilla Xasan waxaa saddex ah aadan Cabdilla Cismaan waxaa afar ah Maxamed Siyaad Bare waxaa shan ah Xasan Guuled Abtidoon shanta dambe na waxa weeye oo safkii hore tobanka hore waxa weeye Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Cali Samatar ninka la yiraahdo Sheekh Xasan Barsame inaan markii hore ka badan u malayn Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Cali Samatar Sheekh Xasan Barsame Cabdullaahi Suldaan Timacade Dictor Cumar Cismaan Rabi Dictor Rabi tobankaas oday waa dhinteen waa haldoorkii hore weeye haldoorka hadda nool waxa weeye kow waxa weeye laba saf weeye safka hore oo shanta السلام عليكم مرة لبعض وصلنا قلنا وعلم حاجة فرسمة نقول عضي رأينا جا هذا وحنو شوكتي أنا وترنا يلا باتن كي هالدور كصوماليات لباتن كي مركز كديب كسوق على معيد وبوسيسة أيدي بوسينة هي وطبعا هراء أو لنتي أو هالدور كي ومدة صوماليات طبعا كاس لو قيب أنك لقيبي قيبته كواد ومنانت كواد له شن بي أهايان كو أحمد قري لابو سيد محمد عبد الله حسن صدح آدم عبد الله عثمان أفر محمد سياب براء شن حسن قولد أبتدون شنتا كحيكتا وحاوي عبد الرشيد علي شرماركة محمد علي سمطر شي حسن برسانة عبد الله سلطان تيمعده ديتور عمر عثمان رابي طبعا كهذا نول waxa weeye 5 iyo 5 baa u kala qaybiyay shanta mudnaanta kuwaad la ugu horeysa waxa ugu horeeya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha hadda Soomaaliya weeye labo waa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele saddex waa Sheekh Shariif Cabdinuur afar waa barnaamijkii hore Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf shan waa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi tobanka hadda nool shanta dambe oo safka dambe aanu bixiyay ninka ugu horeeya waxa weeye Sakariya Xaaji Maxamuud ninka labaad waa Sheekh Maxamed Cabdi Umal ninka saddexaad waa Cabdulqaadir Cali Boolay ninka afraad waa Cali Mire heestii Soomaaliya toosoy ninkii tiriyay weeye ninka ugu dambeeya waa Cabdi Malik Muuse Coldoon oo ku xiran Hargeysa xabsi ku yaal waxaan idin sheegay marka 20 qof oo Soomaaliya aan ka soo doortay oo aanu bixiyay haldoorka ummadda Soomaaliyeed oo 10 dhintay iyo 10 nool isugu jira oo raadkooda inaan qaadno weey hadaan ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed aan nahay waxaan ka hor idin sheegay mabda anagu inuu yahay al-kitaab wal sunnah waxaan idin sheegay dadkan haldoorka ahu inay kitaabka Quraanka iyo sunnada nagu hogaaminayaan ayagoo ka run sheegahaya oo Ilaahay uga baqahaya oo ku dhaqamahaya oo sidii Ilaahay Quraanka u soo dejiyay oo sunnada u soo dejiyay oo Quraanka sunnada Nabi Maxamed u soo dejiyay oo Nabi Maxamed uu dadka u soo gaarsiiyay saxaabadii oo saxaabadii taabiciin u soo gaarsiiyeen oo ilaa hadda culimada loo soo gaarsiiyay
inay nooga run sheegaan oo hawadooda iyo waxay jecel yihiin iyaga aysan macnaha iyo dantooda gaarka aysan diinta noogu macnayn laakiin inay sidii ilaahay iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay diinta u soo dejeen oo saxda ah inay noogu tafsiiraan oo noogu dhaqaan taasaan ka codsanayna markay intaas sameeyaan oo si ikhlaas ah ay ayaguna ugu dhaqmaan oo naftooda ku dabaqaan annagana nagu hogaamiyaan annaga waxaa nala ku yeelanayaa inaan warkooda maqalno oo raacno oonan khilaafin oonan xamanin oonan cayin oonan la diririn laakiin haddana maxaan ka rabnaa waa la xisaabtamaynaa kii gala wixii aan ka soo horjeednay oo intaan u dooranay waxaan ahayn gala waan bedelaynaa nin kale oo intii xaqa ahayd oo aan ku dooranay oo kitaabkii sunnada inuu sayida noogu turjumaha baan ku bedelaynaa haddaan intaas aan samayno annagoo isku duwan oo midaysan waxaan xaqiijinaynaa hadafkii aan lahayn oo ahaa 5 tiir oo Soomaali ka kooban tahay inaan xaqiijino oo hadda 5tiiba dhaawac naga yihiin 50 mid walba 50 maqan tahay 50 gacanteena ku haray diintii baan xaqiijinaynaa oo 100% ku soo celinaynaa gaalnimadii baan ka saaraynaa wixii gaaloobaan soo celinaynaa shiicadan ka saaraynaa kuwa diinta si qaloocan u turjumo u tafsiira oo diinta ku qaloocatay baan ka saxaynaa soo celinaynaa dhulkii baan difaacaynaa khayraadkiisa badda ku jira biriga ku jira hawadiisa baddiisa birigiisa xuduudihiisa waan ku guuleysanaynaa dadka barna lay barna soo hartay barkii dhintana Allah naxariistaan leenahay wax xabsida ku jirana xabsan kala soo baxaynaa kuwa badaha aadayna waa ka joojinaynaa oo badaha in lagu laayo rabo kuwa lagu laaynayo meel kasta oo qarax iyo xabad iyo raashin dhacay iyo daawo lagu dilayna waa ka joojinaynaa waa badbaadsanayna dadkeena afar hantidana ma guurtada ama xoolaha nool geeli lood iyo ariga fardaha dhirta ciida geedaha dhagxaanta waxaan leenahay iyo wixii gudaha noogu jira oo shidaal iyo mataqaana oil and gas ah dahab iyo diamond ah waxaanagaasna waa difaacanayna waan ku guulaysan inaan difaacano midda ugu dambayso oo aabayaashna awoysano oo intaasba 5 qodob difaaci jiray taariikhdii iyo sharaftii iyo magacii iyo qiimaha ay nooga tageen iyo qabkii asagana waa soo ceshanayna intaasan xaqiijinaynaa haddaan isku duubnida sii wadno 5 tiir baa xaqiijinaynaa haddaan diidno marka oo waxaan ku jirnay 60 sano oo soo dhaafay weliba 10kii ugu horeysay oo carta wixii ka horeeyay haddaan dib ugu noqono 3 qodob baa dhacaysa aniga qiyaasayda iyo saadaasheeda horta dhulka waa nala kala qaadanaya oo ummadahan kale oo beesha caalamka la baxay ayaa dhulkii la wareegaya kulli waa qaadanaya ummad kalena waa lagu beerahaya oo Ethiopia Kenya ugu horeyso iyo Uganda iyo mataqaana Burundi Sudan Sierra Leone xataa West Africa waa la soo celinaya waa la qaadanaya waa qodobka koowaad hadday taa dhici weydo waxaa dhacaysa anagoo dhulkeennii joogna mid ah maqaar saar ah oo daxoro maran ah oo caada qaata ah oo u shaqeynaya cadowga ummadda Soomaaliyeed oo gaalada ah inay meesha noo saran oo madaxweyne noogu magacaabaan figurehead president oo marka halkaas dhibkiina ku hayay weligiisii socdo asagana sidii eygii mataqaan inta kubadda tenniska loo tuuro soo qabal dhaho markuu yimaado haddana dhinaca kale loogu tuuro oo maanta dhan marna xagga u soo marna xagga ordu ku jiro marka oo laftigiisu nama dhalme asagaaba naga dhib badan sidii eygii kubadda tennis inta loo tuuraa la leeyahay orod soo qabo sidii eygii markuu keeno dhinaca kale loogu tuurayo haddii aysan labadaas dhicin midda saddexaad dhacaysa waxaa weeye Colombia iyo Philippines iyo Masar in la soo celiyo oo la yiraahdo Soomaaliya waddo reemiyi ah isma xukumi karaan 10 sano ama 20 sano ama 50 sano ama 100 sano waa in la Brazil isugu xukumayo nidaamka dawliga oo saddexdaas waagi hore noo dhiibay 50 ilaa 60 in la soo celiyo yiraahdo idinka ka wakiila UN kan idin xukuma madaxweynaha rasmiga ah oo Soomaaliyana Michael Keaton laga dhigo oo hadda UN ka wakiilka ah oo marka taasna ma ku dhantaa waa maya saddexdaas baan dhaxli doonaa Soomaaliya haddaan kacdoonkii iyo isku duubnidii iyo midnimadii aan muujinay oon ku dooranay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Prime Minister Xasan Cali Khayre haddaan xiidada dhulka loogu aasin oo la adkaynin ee la kala tago
saddexdaas baan dhaxalkooda sugaynaa. waxaan dib ugu noqonayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo kacdoonkiisaan oo asagoo hogaamiye hadda ka ahaa oo dal iyo dibadba 60 sano kii ugu weynaa ahaa. xageebuu ka dhashay? wuxuu ka dhashay 6 bilood oo barnaamijka waa 2011 oo markii dib waddanka laga tarxiilay xoog looga saaray markii la arkay ninkan xawligu ku socdo oo rabo inuu shantii qodob inuu xaqiijiyo ninkan markii la arkay inuu hadafkiisu kaas yahay baa la tarxiilay xamartu ku dhashaa laga tarxiilay America lagu celiyay. 6 bilood waxaa ka horeysay oo asaga prime minister nimiisa iyo 6 bilood oo kacdoonka waxaa ka horeeyay kacdoonkii 6 bilood oo xasan daara weysay Sheekh Shariif madaxweynihii hore ay hogaaminayeen. ayaga laftigooda 6 bilood oo kacdoonka ahaa kan uu ka yaraa hadda dhacay laakiin kacdoon waddanka dhan gaaray buu ahaa. gudaha xataa saameyn buu nagu yeeshay iyo London markaan joogo waa joogo waagaas London ma joogo lafteedu. asaga laftigiisa 6 bilood oo kacdoonkaas oo maxaakiimta wuxuu ka dhashay shirkii Djibouti oo Ismaaciil Cumar Geelle iyo walaayahna Djibouti ay qabteen oo lagu soo doortay madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdulqaadir Salaah Xasan. Cabdulqaadir Salaah Xasan wuxuu xilkii ku wareejiyay 4 sano kadib Cabdullaahi Yuusuf. Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ku wareejiyay kacdoonkii shacabka oo ay hogaaminayeen Sheekh Xasan Daara Weysay Sheekh Shariif Axmed. Sheekh Shariif Axmed wuxuu xilkii ku wareejiyay madaxweynihii hadda ugu dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud. xasan sheekh maxamuud wuxuu si sharaf leh oo waliba taariikhda gashay oo doorashadii aan Soomaaliyeed heerarkaas soo maray 2000 Djibouti oo Ismaaciil Cumar Geelle gobosho noo fiido ka bilowday. wuxuuna hadda ma taqaana u marahayaa kacdoonkan aan ku dooranay dawladdan baarlamaankan iyo madaxweynaha iyo prime minister iyo dawladda lagu dhawaaqay doono dhawaan asbuucida soo socda. intaas حوي مركا إن الحقيقة وهي واحد ما أنت ماشي أصلا فريستي وأنا إلى قمنتا إلى هنا واشة وقرآن كوكو شرتا ميلا بدن بيكي شرتا إن لا سرعه أو لا كلا هرين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكا وحوي وكا هدي الإسراعي وايو أو أنكلا تكلم محاد عيا waxaa dhacaya in maskaxdeenu ay kala tagto maalkeenu uu kala tago muruqeenu uu kala tago oo dhabarka isku duuno oo markaa saddexdaas oo ah tirirkii aan ku xaqiijinaynay shantanadii qodob hadda geed dheer iyo geed gaaban aan ful ayaga inaan soo celino oo gaalada ka soo jarno oo Soomaalidu marka isku halayn ay gasho oo isku wada raacno kadib markaas la raadiyo Soomaali galbeed iyo NFD halkaas marka ay isku wada duubano waxaa marka aan dib ugu noqonaynaa dad diriray oo intiina dhex martay ay dhex mareen Afrika iyo qaaradaha kale oo adduunka afarta qaarado kale iyo Afrika shanta qaarad maana ugu horeeyay maana ugu dambeeyay waa maya haddaan taariikh dib ugu noqono dib haddaan ugu noqono taariikhda Guatemala waa Latin America waddan ka mid ah 36 sano ayay dirirayeen 96 BBC World Service qaybta Ingiriiska anoo dhageysanaya baan ka dhageystay barnaamij looga hadlayay markaas waa 1998 waa 19 sano ka hor maalinkaasa idaacaddu waxay ka faaleynaysaa 36 sano civil war inuu ka socday Guatemala oo waddan Latin America mid ah. Angola 12 sano ayay Unity Rebel Group ay dagaalamayeen iyo militariga Angola. Rwanda wadoogeeda 94 wixii dhex maray ayuu wada gaalaha oo muslimba ku jiray isku luuqad baahan. Hutu iyo Tutsi way u kala baxay haddana way heshiiyeen. Yugoslavia waayadii ma taqaan Serbia Croatia u kala baxday iyo ma taqaana Bosnia dagaalkoodii 90 koodii bilowday 95 waa saga dhamaaday bini aadanka dhan waa saas Yurutan 20 milyan baa ka dhimatay dagaalkii labaad 8 sano 9 sano socday waxa marka bini aadanku waa diriraa horna u diri jiray haddana uu diriraya laakiin waa laga heshiiyaa inaan marka isku calool fayoonaano oo is heshiino oo cadawga naga faa'iideystay intaas ku maqnaan awalna isku ay diray qabyaalada Soomaalida waxaad ogaataan Soomaaliyeed qabyaalada waxaa noo keenay gaalada markay waddankan yimaadeen waxay wateen
dhowr ashyaa bay wateen ashyaa dhowr ah bay wateen kow waxay wateen qori iyo basoolad iyo rasaas waxay wateen boorso lacaga oo dollar ugu jiro waxay wateen dhala khamra waxay wateen baaka sigaar oo xashiish ugu jiro mataqaan sigaar waxay wateen waxay wateen cirbado sunax iyo kiniin dhacay oo kuwa hadda Hargeysa iyo Burca carruurta Soomaaliya inta la xado oo dad cadaan iyo Soomaali isugu jira ay Hargeysa Burca ku xadaan beerkiiyo kaliya kala baxayaan cirbado sun oo mataqaan AIDS iyo cancer iyo balayna ku soo durayaan ayaga nool yimid waagaas waxay noo keenaan بسم الله الرحمن الرحيم هل نجا هذا خد كيبا نروح نوصل جبرية مركا خد كعب نوه يا بناء جبرية حوالي مركا وحيليهن عدة الملاح كدجنا برسان العتها قاضو دات كان كله الله وحيجدينهن ما إحنا يلا عن كدجنا يلعت عن كسيننا يهوك عن كسيننا يو ما تقانا وحن كو قبنا بأدي عدو كوجين أرنت هم تانا سام ما هني dad kan kale waa dadkay ogaadeen inay shantii tiro hadda aan sheegayo abayaashna oo difaaci jireen inay difaaciyaan waa intii diinta difaacaysay intii dalka difaacaysay intii dadka difaacaysay intii hantida guurta iyo tan mataqaana guurta difaacaysay intii magaca sharafta iyo qadiyada Soomaaliya difaacaysay intii marka la ogaado ayaa waxa laga dhigayaa kan doqonka ayaa waxa looga dhigay si loo dagaalgeliyo in asaga iyo cidiisa ay ka soo horjeedaan halkaas ay ka tin marka divide and rule marka horena waa u jireen gumaysigii dhowr boqol sano hadeer taana waa jiraan adduunka takartana waa jiraysaa kuwa marka iyaga ah oo gaaladu beenta u sheegayso oo xukun aan jirin iyo khayr aysan la rabin oo beenta u sheegahay inaan dhahno waxa la idiin sheegaya waa been way horeba ibliis nabi aadam iyo xawa wuxuu yiri qaala tacaala قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعير النبي آدم ما كنت صار geed hadaad cunto weliga boqor ahaanaysa weliga dhimanin waa beende wax jira male dhimashana qof bini aadan oo ka carari kara male waa dhimanaya ilaahay baa xukumay weliga inaad boqor ahaatana ku suurtooy mayso qodobkii horaaba macnaha yaan ku ogolayba mar hadaad dhimanayso hadaad 100 sano boqor ahaw laakiin markaad soo dhiman mayso waa israacayaan marka dhimashadii iyo boqornimadu isku xiran yihiin hadaad weliga noolaan lahayd baa boqornimo wax ku anfici lahayd laakiin mar hadaad 63 sano ku dhimanayso ama 70 sano هذا بقرناضنا تضاد سنة ما ضعفش مركل لبض واحد لهيلي ما واحد خرين لوه هلي ما حدا اللي هيلي ماي أنت كارت اللي هيلي ماي مركل آخر أنا هسيج أدون كأنا هسيج ذات كمسلم كأصومالي دانا هسيج أدون حيس بعد بينه أدون آخر النار إلهي هكشة قيسان أدون كان عرا إلهي عب هكشة قيسان صومالي وركب وانسوق بجبين إياه وحان أباهنا هاي سيان شنطاس قلب aan u xaqiijino dadkaas aan sheegay oo hal doorka umada ah iyo inta aanan aqoonin ama hilmaamay oo aan ka tagay oo la midka inaan hoggaanka u dhiibano marka haddaan intaas sameeyno annagan intiina la ka rabay oo maskaxda iyo muruqa iyo maalka aan midayno waan xaqiijin karnaa wax kasta waxaa kaloo kuu soo haray meesha waxaa ka baxaya haddii kitaab iyo sunno lagu xukumo waxa la wixii aan isku haysanay oo nalagu soo gabanay oo inaan dirno ahayd kursiga madaxweynaha inaan isku qabsano meesha way ka baxaysaa markii quraanka iyo sunnadii baaba qofkii uu hogaamin lahaa asaga soo yaa sheegaya quraanka iyo sunnada noo sheegaysa waxaa meesha ka baxaya bangiga dhexool isku diri jiray in manager laga noqdo meesha uu ka baxaya aeroboortkii dekadii lagu diri jiray in lacag laga helo meesha way ka baxayaan baadiyaha ceelashii ceel gacmoodka lagu qoy jiray waa laga baxaya biyaha la qodaya nuclear baan samaysanayna ceelal shidaal baan samaysanayna adduunka oo dhan baan noo soo barya tagahaya adduunka oo dhan baan naga baqahaya dadkan qaxooti u qaabilayna annaga waxaan noqonaynaa dad sharaf iyo maac ku nool adduunka warkii Soomaaliyeed wixii aan asiibana ilaahay xaqiisa ka ahaatay wixii aan qalday ma shaydaan iyo naftayda ka ahaadeen 10 daqiiqo 5 daqiiqo hadaa su'aalo i weydiinaysaan وأنا كذا جوابين هدان سؤال جرنا هل كاسم كوكا لتجينا وركان ورك لبعض عن دوبي وورك صدق هذا إن شاء الله أوكي إله هلا يقان قرط عن دوبي دونا لكن ما أنتي وركي أبتر سياسة مالي أنا وادي شيء كانوا وكيل أوكي عبد الرشيد دور سؤال لو ودينا يا
marka waxaa jeclaan lahayn inaad su-aalahaas jawaabtooda soo koobtid oo daqiiqad kasoo koobtid. su-aasha ugu horeyso waxaa kusoo weydiiyey maxamuud faarax wiil la yidhaahdo, wuxuuna ku leeyahay adiga ahaantaadu is leedahay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo way kaga duwanaan doontaa dowladihii dalka soo maray ee ku-meel gaarka ahay midii hadda ee federaalka oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud. magaciisa muxuu wiilka? maxamuud faarax. maxamuud faarax, waa mahadsan tahay. su-aashaada waxaan u fahmay dowladda maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu madaxweynaha ka yahay, xasan cali khayre uu baramister ka yahay, maxay kaga duwanaanaysaa ama maxay kaga fiicnaanaysaa madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud afartiisii lasoo dhaafay? saas baan su-aasha u fahmay. ma saasa mise waa si kale? waxay ku xiran tahay hadba shacabka soomaaliyeed sida ay ku bilaabeen oo ay dowladda ku samayseen ayagaa samaystee. hadday ku sii wadaan wax badan bay kaga duwanaanaysaa. haddaan tusaale kuu soo qaato kala duwanaanshaha ugu horeeya waxaa weeye oo adiguna hadda aad iga markhaati kici doontaa, inta imaqlaysana ay iga markhaati kici doonaan waxaa weeye sida adduunku noogu soo istaagay markii aan dooranay baarlamaankiina madaxweyne noo doortay, madaxweynena baramister noo doortay, baarlamaankiina baramisterka ay xaqiijiyeen, sida adduun weynu nooga haybeystay oo noogu soo istaagay oo sacuudigu reer carbet aysan noo fidin jirin, lixdaasna noogu fidiyaan, oo taasoo macnaheedu ay tahay soomaaliya way soo jeesatay, waa israacday, waa midowday, meel luuqa cid ka soo geli karta male, cidda cuureemi karta male, cid dhabar jabin karta male, cid ku dhufo ku dhaqaaq ku dili karta male. marka wixii aan dan ka lahayn oo awal mataqaana si khaldan u raadsan jirnay iyo in ayaga dhibaateeno si baryo ah oo caddaan ah oo qabow oo macnaha sida bini aadamku isku qaabilo ah oo miis iyo kursi inta lasoo fadhiista ah aan qaabkaas u qaabilno. sacuudigaaba kugu filan iyo caalamka intii ama safaarado yimid ama intii madaxweyne soo tahniyey ama bini aadamka sida waxyaalaha mataqaan mass mediaha qalabka warbaahinta waxyaalaha ku qoran soomaaliya dadka soo tahnideynaya af soomaaliya ku hadlahaya, maxaan ku rahda iigeeya farmaajo dadka caddaankaa dhahaya, dadka madowgaa dhahaya, eeshiyaanka dhahaya, arfarmaajo iigeeya wiilkii mataqaana afgooye taariikhdaas dhigay taas oo kale. taasaa marka daliil kuga ah taas iyo wixii kasii weyn. laakiin haddii shacabka ama ummadda soomaaliyeed hadday ayagu saan hadda ka hadlayo oo aan ka digahay oo hadalkaanba inaan duubay u kalifay, hadday dhabarka isku duwaan oo maskaxdii iyo maalkii muruqii la kala tagaan, hadda cadowgii waa soo noqonayaa, sidii nalkaga faa'idaysanayaa. midii madaxweyne xasan sheekh baana waxay noqonaysaa caana kugu daatay. wiilkan labaad wato wiilka somalilander waa magac cusub ku qoray facebookiisa balse midkiisa rasmi ma naqaano. marka wuxuu weydiinaya isagana, wuxuu ku yidhi cabdirashiid waxaa ka hadashay arrinta cabdimaalik muuse coldoon, ma og tahay in cabdimaalik muuse coldoon uu jabiyey xeer iyo sharciga u yaallo somalilan oo ah in shaksi magac mise maamuus kule somalilan markii laleeyahay dadkan shacabkiin waxaa weye wariyaasha, siyaasiyiinta, madax dhaqameedyada, culummada, dadkaas ganacsatada, dadkaas shacab ma ahan, waa madaxdii. marka wuxuu leeyahay dadka oo public figureka inay muqdisho tagaan oo hadallo lidi ku jiritaanka iyo ictiraaf raadinta somalilan, soo muusan jebinin sharciga u yaallo somalilan, mise waad ku difaacaysa oo waxaad rabtaa in aad kasoo horjeesatid sharciga somalilan? waa siduu isaga hadal ku dhigay. magaciisa ii sheeg. wiilka somalilander. walaal somalilander ninkan wato waxaa weeye arrinta cabdimaalik muuse coldoon waxaa weeye waxaan u arkaa anugu somalilan iyo soomaaliya iyo jabuuti iyo soomaali galbeed iyo n f d kulli soomaali baa nahay, wax aan kala leenahayna ma jirto, farqi noo dhexeeyana ma jirto. wax sharci iyo shuruuc iyo dembi uu galay iyo wax alla wuxuu jabiyey cabdimaalik coldoonna anugu mana jiraan baan qabaa, mana aaminsani. marka wax la yiraahdo cabdimaalik coldoon intuu tegey jabuuti ama jijiga tegey ama gaarisa tegey ama muqdisho tegey muxuu u tegey baa dembi ah, oo sharci waxaa jira somalilan ay leedahay oo ah qofkii somalilan oo taga afarta qaybood oo kaleo soomaaliya waa dembiile oo meel buga dhacay,
warkaasu war jira maahan war qoranna maahan wax saxana maahan isaga kuma eedeynaya inuu muqdisho tagay balse wuxuu ku eedeynaya inuu farmaajo u tagay oo uu u heesay oo uu yidhi soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo micnaheedu waxaa weeye koonfurtii waqooyiga ha israacdaan ictiraafaraynta somaliland waxba kama jiro waa saas waaye waxa uu loo helay cabdimaalik muuse coldoon waxaa weeye cabdimaalik muuse coldoon wuxuu la mid yahay anoo hadda u tagay madaxweyne maxamed axmed maxamuud siilaanyo u tagay oo salaamay oo waraysi la qaatay oo la sheekaystay haddana kadib xamar tegey oo xamar laygu xiray oo layidhi cabdirashiid maxaad ugu tagtay maxamed axmed maxamuud siilaanyo maxaa ugu tagtay uma arka marka hadda anugu haddaan u taga maanta siilaanyo oon xamar haddana tago in xamar laygu xiro oo la yidhaahdo waxaa dembi ah inaad tagtay siilaanyo u tagtay taa uma arko waxaan u arka haddii xamar laygu xiran inay qalad iyo gardarro laga gardaranya tahay waxay la mid tahay haddaan jabuuti tago oo ismaaciil cumar geella u tago haddaan xamar ku noqdo oo laygu xiro la yidhaahdo cabdirashiid maxaa ismaaciil cumar geella ugu tagtay waxaan u arkaa haddana in xamar ay gardaran tahay waxaa kuu soo haray qadiyadda somalilan ummadda soomaali dhan bay u taallaa somalilan laftigeeday u taallaa waa arrin soomaali dhan u taalla weeye in laga wada hadlo laga heshiiyo waxyaala laga heshiinayo layska cafinayo laysku afgaranayo bay ka mid tahay intaasaan kaga har jawaabtii okay wiilka u dambeeya su-aasha u dambeeya haddaa galno magaciisu waxaa la yihahda cabdirasaaq siyaad wuxuu joogaa magaalada Seattle Washington ee dalka Mareykanka waxaanu ku weydiinayaa cabdirashiid saa ogtahay dalka Soomaaliya waxaa ragaadisay dagaalo sokeeye oo 20 sano soconayay kooxaha dagaalamaya dalka way kala duwan yihiin wajiyo badan iyo shaatiyaal badan ay wataan ha ahaadaan mid oo diimeed iyo mid oo qabaa'il ma isleedahay dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo way la shaqeyn doonaan mise waxa isleedahay halkooda bay kasii wadi doonaan warshamsiga mise dagaalka magaciis cabdirasaaq siyaad waxaan ku leeyahay isla tii hore oo kale weeye waxay arrintan ku xiran tahay shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed 6 bilood ayaga maxaakiimtii macnaha ka adkaaday nimankii ahaa dagaal ogayaasha waloorada ayaa ka adkaaday shacabka ka adkaaday macnaha maxaakiimta kaliya kama adkaan iyo xasan daahir aweys iyo sheekh shariif kama adkaan waxaa ka adkaaday shacabka Soomaaliya ka adkaaday hadda waxaa keenay markii lagu ay kala xirnayd magaalada gaalkacyo labada u kala xirnay oo galmudug ay dagaalamayeen Puntland shacabkiiba qaaday isbaarooyinkii ayagoon cidna amar siinin bay xoog ku qaadeen marka su'aasha uu shacabka xukumo shacabku waxa la wixii ka hor yimaado dawladda ayagu ay gacmahooda ku sameysteen shacabka gacmahooda ku burburinayo oo dadka iska difaacayo oo celinayo laakiin shacabka laftigiisu hadduu dawladda ka hor yimaado oo meesha lagu kala tago kuwaas waa soo noqonayaan 60 sano waxay wadeen bayna wadayaan waxay la mid yihiin beeshii caalamka la baxday oo anigu cadowga ummadda Soomaaliya u aqaano dadkaasay la mid yihiin marka kuwa beesha caalamka iyo kuwa beesha caalamka la shaqeeyo annaga Soomaalida naga dhashay oo hadda aad sheegaysid waxaba in laga adkaado labada qaybood la isku daray waxa ka adkaan kara dawladda baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo dawladda uu hogaamin doono xasan cali khayre waxa inay ka adkaadaan laga sugahayo ama inay ka adkaadaan ay waajib ku tahay iyaga ma waa shacabka Soomaaliyeed oo midaysan wax ka hor imaan kara ma afarta qaarad kama imaan karto afrika kama hor imaan karto wadan ka hor imaan karo kaligiisa ma jiro qabiil iyo qof ka hor imaan kara ma waxaad jawaabtay su'aasha waxa weeye midnimadeena isku duubnaanteeda baan kaga adkaan karnaa wax kasta ama cadow gudaha ama cadow dibadda ama hal qof ama qabiil ama koox is urursatay magac kasta la baxday marka guusha ay weydiinayso waxay ku xiran tahay go'aankii hadba shacabka qaataan haddii shacabku xaqiijiyaan isku duubnaantan iyo midnimadan sii wadaan waa laga adkaan cid walba haddii shacabku kala tagaan hadee waxay noqonaysaa salan iyo kala taga qoladaasana soo noqonaysa aniguna ba iyo hoggaasaan ku jireena وما سنتها وليس هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله هذه أدب وما